kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan laguna soo dhaweynayay Suldaan Maxamed Jaamac Shire Suldaan Juunle ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. ujeedada kulanka ayaa ahaa xog wareysi daaran xaaladda dalkeena hooyo oo dhawaan ka soo kicitimay suldaanku. Suldaan Maxamed Jaamac Shire Suldaan Juunle ayaa ka mid ah isimada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada Puntland. dadkii xafladda ka soo qayb galay oo wajiyadooda laga dheehan karay farxad iyo reyn ayaa waxa hadalladooda ka mid ahaa. Suldaan Maxamed soo dhawow Minneapolis ku soo dhawow Allah ku nabadgeliyo xilka aad qaaday Allah kugu afshay waxa marxaanti ma doonta suldaanku inuu barakaysan yahay waayo sidaan dad u taagan intaanu fadhido soo marin waa xidigtiisa iyo burjigiisa ilaahay baana siiyay allaha u siyaadiyaan markaleena qodobka koowaad waxa uu yahay meeshaan wadankan aan ku noolahay waa ku badanna markii magaca Soomaaliyeed la yiraahdo haddii la eego waxtarkeena ama iska warqabkeennuna waxaad moodaa ummado badan oo naga yar inaan ka hooseyno duub waan leenahay duq waan leenahay aqoonyahan waan leenahay inaan inta isu nimaadno hal magac ayaan wadanahay halka magac ku wada shaqeyno oo aan raadino inaan sida sharafta leh oo ummaduhu u noolin halkan ugu noolaano allahna tusaan leeyahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa in aad u horseedo oday dhaqameed badan inay noo yimaadaan nala hadlaan na jeclaysiiyaan waddankeennii dhallinyarada hadda suldaanka iga horreeyay uu ka dhawaajiyeyna iyo Soomaaliba isu keena oo mataqaanaa annagu waanu madeysannahay in fact laakiin waxa weeyaan in muxuu ahaa intan aanu ka sii badino insha Allah sinante Soomaali waa sinante Suldaan Maxamed soo dhawaw Soomaali waa sinante Suldaan Maxamed baan soo dhaweynayaa soo dhawow Suldaan anoo ku hadlaya haweenka Soomaaliyeed reer Minnesota codkooda waxaan leeyahay Suldaan waqtigu wuu sunsumayaa midna waa la sugayaa soo jira ma noole qarni waliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan hadba kooda sare kaca waxa sahayda uga taga kii hore u sagootiyay dad ka seexna mooyee sumadii awow iyo sinjigaas noolaan suldaanku wuxuu ka qayb qaatay dhammaan dib u heshiisiinadii Soomaaliya laga soo bilaabo Carta ilaa laga gaaro dawladdii hadda ugu dambeysay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baarlamaankii la soo dhisay ismadii soo dhisay uu kamid ahaa waxaan codsanayaa marka in ummadda Soomaalida loo duceeyo ilaahay caqabada naga saaro suldaan waa u jeedaa reer Mareykan reer Minnesota in lagu soo dhameeyo Soomaali weyn inta kadib waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Suldaan Maxamed Jaamac Shire isagoo oo ka codsaday bulshada Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan kana shaqeeyaan midnimada iyo dib u dhiska dalkeena hooyo dadkii abaabulay gogashan sharafta leh munaasabadan ka shaqeeyay oo gabdho iyo wiilal balaha oo waqtiga ku horay ayaguna mar labaad bay mahadsan yihiin aynu ka shaqeyno sidii odayaashu u sheegeen midnimo Soomaaliyeed aynu ka shaqeyno si naf iyo maalba qof walba niyadiisa macnaha waxa weeye ha u istaago sidii macnaha waxa weeye uu uga shaqeyn lahaa horumar iyo midnimo Soomaaliyeed waxaan leeyahay ninbaa wuxuu yiri baa la yiri dad intaan tira leeg wareeda bari dagaal baan galaynaaye madaxa mayraxa lagu duubto ninbaa wuxuu yiri aqliga la ka qaad dadka inta leeg baa mayrax ku duuban kara war aduu ka ku duubali aduu ka ku duuba waxaan ka wadaa qof walba qalbigaaga iyo codkaaga iyo fakarkaaga iyo dhaqaalahaaga iyo waqtigaaga ku bixi midnimo Soomaaliyeed Cabdi Casiis Gabax Puntland TV Minnesota Mareykanka